Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinka soo hadlaynaa waa janaalkeenii aan koorsa ingiliishka aan ku baranaynay. Casharkayaga waxa uu ku saabsan yahay cashar aad muhiim u ah. Waa vocabularies with sentence. Vocabularies with sentence waa erayo cusub oo wata ama la jiraan weero. Number 1, knowledge is our motto and we try to make it meaningful. Knowledge, aqoonta ama cilmiga, is our motto, waa fikradaheena, waa olahadeena. And we try, waxaan isku dayi doonaa ama waxaan isku dayaynaa. Knowledge, aqoonta ama cilmiga, is our motto, waa olahadeena, waa fikradaheena. And we try, waxaan isku dayaynaa to make it, inaan ka dhigno asagii meaningful, wax macno buuxda leh. Meaning, macno, full buuxa. Eryaalka markay saas gadaa u raacaan waxaa la yidhahdaa suffix. Waxyaalo badan sii baran doonaa insha Allah casharada dambe. Knowledge, marka cilmiga ama aqoonta, is our motto, waa oraahdeena. And we try, waxaan isku dayaynaa to make it, inaan ka dhigno asagii meaningful, mid leh macno buuxda. Number 2, I would like to apologize you sincerely for the missing office for the last 5 days. I would like, waxaan jeclaan lahaa, to apologize you, inaan ku raali geliyo, sincerely, si daacad ah, for the missing office, maqnaanshihii xafiiska aan ka maqnaa, for the last 5 days, 5 maalmood ugu dambeysay. I would like, waxaan jeclaan lahaa, to apologize you. Apologize mar waa z, mar waa s, labada same waa. Z-kan waa la qaataa, s waa dhigi kartaa, no problem. I would like, waxaan jeclaan lahaa, to apologize you, inaan kugu raali geliyo, sincerely, si daacad ah, for the missing office, maqnaanshaha xafiiskii, for the last 5 days, 5 maalmood xafiiska aan ka maqnaa. Number 3, in fact, I hate nepotism, corruption, tribalism, and whatever that can harm human being. In fact, xaqiiqdii, I hate, waa necbahay, nepotism ee xashada, corruption, musuqmaasuqa, tribalism, qabyaalada, and iyo waxaan necbahay whatever, wax walba, that can harm, oo wax yeeli kara ama dhaawici kara human being, bini aadanka. Number 4, live not to eat, but eat to live. Live not, ha u noolaanin, to eat, inaad wax cunto, ha u noolaanin oo keliya, but laakiin eat u cun, to live, inaad ku noolaato wax u cun. Ha u noolaanin wax cunto, laakiin u cun inaad ku noolaato. Live not to eat, ha u noolaanin wax cunid, but laakiin eat u cun, to live, inaad ku noolaato. Luckily, her pain has gone down and the blisters almost healed. Luckily, nasiib wanaag, her pain, xanuunkeedii, has gone down, hoos ayuu u degay, and the blisters, nabaradii ka soo baxayna, almost sida badan, healed, recovered, way bogsoodeen, way ka bogsootay. Luckily, nasiib wanaag, her pain, xanuunkeedii, has gone down, hoos ayuu u degay, and the blisters, nabaradii ka soo baxayna, qandhadii, almost sida badan, healed, way ka bogsootay, recovered. Knowledge is the treasure that no thief could touch, not even misfortune or poverty. Number 6, knowledge, cilmiga ama aqoonta, is the treasure, waa maal, that no thief, kaasoo la xadi karin, that kaasoo no thief, tiiga uusan ahayn, could touch, mid la taaban karo oo la xadi kara ma aha. Not even, xataa ma ahanayso, misfortune, nasiib daro kuuma dhacayso marka wax barato, or poverty, ama faqiirtinimo. Transitional government. Number 7, transitional government waa dowlad kumeel gaar ah. Transitional government, dowlad kumeel gaar ah. A bill for peace. Number 8, a bill for peace, baaq nabadeed. A bill for peace, baaq nabadeed. Number 9, as the matter of fact, you are always a bad-tempered. Please calm yourself down. As the matter of fact, sida xaqiiqadu ay tahay, ama sida dhabta ay tahay, you are always, adigu had ii jeeraale, a bad-tempered, si xun ayaad u cabataa. Please, fadlan, calm yourself down, nafsadaada diji.
isdij as well, isdij. Please fadlan calm yourself down. Nafsadaada hoos dij. Isqawooji, isxasili. You are behaving waxaad u dhaqmaysaa adiga like sida a startling child, sida unug soo baraarugaya. Unug markii laga naxiyo oo naxo fiig u yahay. Startling means waxaa naxtin oo baraarug ku jirto markuu yiraaho. You are behaving waxaad u dhaqmaysaa adiga like sida a startling child, sida unug ama ilmo oo baraarugaya. Number 10, please fadlan, please stay away from my trees. Don't get involved into my personal affairs. It does not take me to make you non-existent. Please fadlan, stay away ka leexo from my trees. Raadadkayga ka leexo ama raadkayga ka leexo. Don't get involved, ha ku lug yeelanin into my personal affairs. Arrimahayga shaqsi aan leeyahay ha ku lug yeelanin. It does not take me, iguma qaadanaysa anigana, to make you inaan kaa dhiga adigii non-existent waxaan jirinba. Please fadlan, stay away ka leexo from my trees. Raadadkayga ka leexo. Don't get involved, ha ku lug yeelanin into my personal affairs. Arrimahayga afaarahayga khaaska aan u leeyahay ama shaqsi ahaanteeda afaarahan u leeyahay ha ku lug yeelanin. It does not take me, iguma qaadanaysa adigana, to make you inaan kaa dhigo non-existent waxaan jirinba. Number 10, wuxuu yiri, what a big bro beating you are. Alla boota badana, boota leeda. What a big bro beating you are. Alla boota badana. Waxa u dambeeya waa exclamation mark. Waa calaamadaha tacajab waa. What a big bro beating you are. Alla boota badana. Number 11, the law will fetter you. You are not above a criminal whose life is at stake. The law sharci ayaa will fetter you ayaa ku darbi doona adig. Waa ku dabraa. Sharciga luga ka xira waa ku dabraa waa. Labada waa laga xira. The law sharci ayaa will fetter you ayaa ku dabri doona. You are not above, kama korey kartid, a criminal dambiile maka korey karo. Whose life kaasoo noloshiisa is at stake ay qatar ay ku jirto. Stake means danger, khatar waa. The law sharci ayaa will fetter you ayaa ku dabri doona. You are not above, kama korey kartid sharciga, a criminal dambiile maka koreyn karo sharciga. Whose life kaasoo noloshiisa is at stake qatar ay ku jirto. Number 12, our Islamic religion diinteena Islaamka ah. Our Islamic religion diinteena Islaamka ah. The sisters way naga reebtay to use inaan adeegsano, inaan isticmaalno drugs, daroogada. Our Islamic religion diinteena Islaamka ah. The sisters way naga reebtay to use inaan isticmaalno drugs, daroogada. Number 13, 13, it is a filth. It is waxay tahay iyada filth, nijaas waa. It is waxay tahay a filth. Filth means nijaas. Wixii wasaq oo xun waa. Filth, nijaas ka leeda. Number 14, drinking beer or smoking bang are harmful or destroys person's health, mind, respect, religion, and even work. Drinking cabitaanka la cabo beer qamriga leeda, or smoking bang ama xashiiska oo la dhuuqa, are harmful waxay dhaawacayaan, or destroys waxay baabi'iyaan a person's health, caafimaadka qofka, mind, maskaxda qofka, respect, ixtiraamka iyo xushmada ayay ka baabi'isaa. Religion, diintii way ka baabi'inay, and even xataa waxay baabi'inay work, shaqada. 15, make use of your golden chance while you are young. Make use of your golden chance while you are young. Make use ka faa'iidayso, war hooy ka faa'iidaysta, of your golden chance, fursada dahabiga ah, while intii you are young, intaad dhalinyaro tahay, wiil iyo gabarba, odayaal iyo duqowba, ama dhalinyar iyo waayeel se u tahin, ka faa'iidayso fursaha qaaliga ah, ka faa'iidayso. Make use ka faa'iidayso of your golden chance, fursada oo dahabiga ah, while intii you are young aad dhalinyaro tahay. Casharkeeni maanta halkaas ayaan kusoo koobayaa. Halkaasaan u ogtahay la socod wanaagsan. Wixii niwadis ah waa saa u calamaysan yihiin si wanaagsan ha loola socdo insha Allah. Toos ayaan u wadi doonaa. Mashquul iyo waxyaalahaas baa jira, xoogaa mashquul. Adduunyada waa iska taqaani, waa iska dhib badan tahay. Marka halkaasaan kusoo gabagabeeyey. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tan kale waxaad samaysaa noo share garaya si walaalahayna adduunyada meel walba geeskeeda, dowladda daafkeeda ku nool ay u gaaraan.
like-tan hanaga iloobina, waa dhiirgelinteena. Subscribe-kana noo saara. Intaas u baahay casharka si fiican loo fiirsado. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.